EBZ Channel News. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhawaada EBC Channel News. waa laba kala socotaan barta YouTube-ka iyo dhammaanba aaladaha internetka. haddaba wararkii caalamka waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mr. Panorama, isla markaana ah Artificial Intelligence. qodobada wararkana waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo kala hadlay madaxweyne Putin si ay soo afjir lahaayeen dagaalka Ukraine. afhayeenka Hamas oo sheegay in ay dib u dhigi doonaan sii deynta maxaabiista hadhay kadib markii Israa'iil carqaladeeyeen heshiiskii ay gaadheen. dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka oo diiday inay saxeexaan heshiiska caalamiga ah ee loo yaqaan AI Artificial Intelligence Declaration. daawasho wanaagsan qodobadaasi warka oo faahfaahsan. madaxweyne Trump ayaa sheegay mar uu raacayay diyaaradda Air Force One-ka isla markaana uu sheegay in uu mar ama laba ama saddex in ka badan uu la hadlay madaxweynaha dalka Russia Mr. Putin isla markaana uu kala hadlay sidii soo afjar lahaayeen dagaalka ragaaday ee ka socda dalka Ukraine. Trump hadallada uu sheegay waxaa ka mid ahaa sida uu hadalka u soo gudbiyay. waxa uu yiri maalin kasta qof ayaa dhimanaya, mana arko si uu dagaalku u sii socdo. sidaa daraadeed waxa aan aad u xiiseynaya in dhaqso si loo joojiyo dagaalkan. dhinaca kale, Moscow ma ay xaqiijin hadalka uu sheegtay Mr. Trump. si kastaba ahaatee dagaalkan Ukraine ayaa ah mid muddo dheeraaday isla markaana dalka Ukraine uu aad ugu baaba'ay una burburay dad badanina ay ku dhinteen. lamana garan karo sida uu ku dambeyn doono xaqiiqda dhabta ah. afhayeenka ururka Hamas Abu Ubayda warbixin dheer oo soo saaray waxa uu ku sheegay in ay dib u dhigeen sii deynta maxaabiista ilaa iyo amar dambe. maxaabiistaas oo ah kuwii ay heshiiska xabad joojinta kula galeen dowladda Israa'iil qaybtii harsanayd. si kastaba ahaatee waxa uu eedan iyo dhaleecayn u soo jeediyay dowladda Israa'iil in ay ka baxday heshiiska xabad joojinta oo ay wadaan dagaal iyo dhibaato hor leh oo joogto ah. dhinaca kale, dowladda Israa'iil ra'iisul wasaaraha Netanyahu waxa uu isugu yeeray golihiisa amniga qaranka ah si ay arrintan ay uga falceliyaan. waxaa kaloo la sheegayaa in wasiirka difaaca ee dalka Israa'iil uu heegan degdeg ah uu geliyay dhammaan ciidamada Israa'iil si ay uga hortagaan dagaalada iyo dhibaatooyinka ka iman kara ururka Hamas. dowladda Israa'iil waxa ay dib u dhigtay waftigii ka qaybgeli lahaa shirka dib heshiisiinta qaybtiisa labaad ee dalka Qatar. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Netanyahu waxa uu ka dhigay mid joogto ah dagaalka hadda ka socda. shirka caalamiga ah ee loo yaqaan International Artificial Intelligence Summit oo ka dhacay dalka Faransiiska magaalada Paris maanta oo ah Talaada, isla markaana ka soo qayb galeen wadamo fara badan oo adduunka ka mid ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dalalka waaweyn ee India iyo China iyo France iyo Mareykan iyo Ingiriis. isla markaana waxaa halkaasi lagu kala saxeexday heshiisyo hordhac ah oo loogu talagalay in uu noqdo sharci loo wada isticmaalo aaladan loo yaqaano AI-da. haddaba shirkan waxaa ka soo horjeesta oo iyagu diiday in ay saxeexaan heshiisyadaasi dalka Mareykanka iyo dalka Ingiriiska. isla markaana waxa ay sheegeen in loo baahan yahay tiknoolajiyada casriga ah in aan lagu hafan ee loo yeesho aragti fog, isla markaana la fahmo qaabkii looga wada shaqeyn lahaa. dhinaca kale, aragtiyaha kala duwan ee ay lahaayeen dhanka kale ee shirka sida China, India iyo Faransiisku ay shaxaax ku taageen waxa uu ahaa in ay noqoto AI-du mid hufan oo furan oo ay dadku ka wada qayb qaataan, isla markaana ay noqoto mid laga wada faa'iido. si kastaba ha ahaatee, Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay u muuqataa mid iyaga aanay danahoodu ku jirin, isla markaana ay isweydiiyeen faa'iidada ay ka heli karaan inay dhaqso u saxeexaan sharciyo degdeg ah iyo in ay dib u dhigaan si ay marka ay ka soo baaraan degaan waxyaalaha shirarka ay ku bedeli karaan qodobada lagu saxeexayo sharciga AI-ga. warkii caalamka intaa ayuu nagaga dhan yahay. waa Mr. Panorama Style oo idin leh isma dhaafno. ha mogaanina EBC News Channel, warar xaqiiqaha ugu fan, faalooyin iyo wararka degdega ah. haddaba kala soco EBC News. fadlan subscribe, like